عليكم أخيارتا muuqaalkeena maanta waxaa ku saabsanaan doonaa jacaylkii duurka ama kaynta. beri baa waxaa jiri jiray wiil la odhan jiray Xuseen oo ku noolaa keligii kaynta, wax dad oo agagaarkiisa ka dhowna ayna jirin. wuxuu ahaa wiil qalbi fiican, kelidiina ku noolaa kaynta. wuxuu kayntii ku noolaadaba wiilkii maalin maalmaha ka mid ahayd ayaa waxa uu kaynta isagoo iska jooga wuxuu si kedis u arkay gabadhaasoo iyaduna ka luntay dad ay la socotay oo ay ahaayeen dalxiisayaal. gabadhani waxay duurka ku luntay muddo usbuuc ah ayay ku jirtay duurka, waxayna ka lunsanayd ama ay ka luntay dhallinyartii ay la socotay. kelideed ayaa iyadana duurka ku noolayd. wiilku wuxuu ahaa wiil qalbi wanaagsan. markuu gabadhii arkay salaan fiican ayuu ku salaamay. gabadha waxoogaa way ka yara baqday, laakiin salaanta way ka qaaday. kadib wiilkii waxa uu ku yidhi xaggeed ka timiday, xaggeese ka soo gashay kaynta. kadib gabadhii waxay ku tidhi aniga kaynta ma aanan aqaan, manaan soo gelin, laakiin waan ku lumay, waayo waxaa iga tegay dhallinyartii aan la socday oo aanu kala lunnay. muddo waxaan joogaa kaynta. kadib wuxuu ku yidhi kaynta waa dhibaato badan tahay, sidee baad muddadan u joogi kartay? waxay ku tidhi danta ayaa i baday, wixii aan helana waan qadhaabsanayay, macnaha midhaha aan helo iyo wixii aan qoto ayaan cunayay, mana helin garab kale. ilaahina waa igu badbaadiyey, ee adiga kaynta maxaad ka qabataa? wiilkii wuxuu ku yidhi ani kaynta waan joogaa oo waan ku noolahay, meeshan ayaan hoy ii ah oo kayntan ayaan aniga galaa. asalkayga halkan ayaan aniga ku aqliyaystay oo aan joogay muddo dheer, saa darteed kaynta ayaan iskaga noolahay, waxaanan ahay qof midhaha iyo iska cuna waxyaalaha uu kaynta ka helo. kadib gabadhii waxay ku tidhi waa sax, laakiin meesha inaad joogto maxaa kugu kalifay adiga? waxa uu ku yidhi ani markii hore waxaan ahaa wiil yar, markaas waxaan jeclaan jiray inaan ku noolaado kaynta. kadib hooyadii waan ka soo baxsaday muddo dheer ka hor anigoo aad u yar, waxaana soo galay kaynta. kadib kaynta sidaada si lamida waan ku lumay. kadib waxaan bartay noloshii kaynta, waxaanan u noolaa iskay, waayo cid i caawisana maanan helin. markii dambe kayntii waan la qabsaday, aniga oo keliyaata ayaa waxaan ku noolahay kaynta. gabadhii waxay ku tidhi oo muddada intaa leeg markaad kaynta joogtay maxaad uga tegi weyday? waxa uu ku yidhi kayntii waan jeclaaday, waanan la qabsaday, nolosheediina waan bartay. wuxuu ku yidhi okay, kaynta laga yaaba inaanad ka qadhaabsan karin ama aanad garanayn sida kaynta loogu noolaado, waxoogaa waa uu ku barayaa inta aad ka helayso asxaabtaadiina waan kula raadinayaa. gabadhii way soo dhoweysay fikirkii, aad ayaad u mahadsantahay ayay ku tidhi iyadoo waxoogaa ka baqaysa. kadib wiilkii wuxuu u soo guray midho iyo waxay cunto, kadibna waxoogaa waa u sheekeeyey. waxay cabbaar sheekaystaanba waxaa soo galay habeenkii. kadibna wuxuu ku yidhi meesha yar ee aan samaystay adiga ayaa caawa gelaya, aniga waxaan fuulayaa geedka xaggiisa sare, halkaas ayaanan seexanayaa, ee halka adiga iska seexo. waayahay bay ku tidhi gabadhii, wayna ka aqbashay iyadoo ka yar baqaysa. wiilkii markii salaaddii subax la gaadhay waa uu soo kacay, kadibna cunno ayuu u soo raadiyey, wuxuuna u soo helay midho. kadib midhihii wuu u keenay, gabadhiina sidii ayay midhihii ku cuntay. waxa uu la baadi goobay asxaabteedii, kadibna kaynta ayay dhinac walba u mareen, wayna waayeen. wiilkii wuxuu gabadhii u geeyey meelaha aadka ugu quruxda badan ee ka mid ah kaymaha uu isagu ku nool yahay, maadaama uu kala garanayo kaynta. kadib aad ayay uga heshay, waxayna ku tidhi meeshani aadka u quruxda badan leh, qof keliyaata inuu ku noolaado waa dhibaato badan tahay mooye, laakiin way qurux badan tahay. haa buu ku yidhi, laakiin kelinimadayda aniga uma arko dhibaato, waayo waan la qabsaday, aniga oo keliya ayaa meeshan ku nool, waxaana naqaanaa sida xayawaanka jooga duurka loola dhaqmo. qaar waxaa jira buu ku yidhi khatar badan, inala soo weerari kara. kadib gabadhii waxay ku tidhi xayawaanka sidee baad uga badbaadaa? kadib wuxuu ku yidhi waxyaalo badan ayaan adeegsadaa, orod waan adeegsadaa, geedahana waan ka fuulaa, sidoo kale xayawaanka qaar waa la iska qariyaa, qaarna waa la iska celiyaa.
kadib gabadhu waxay ku tidhi ma waxaad rajaynaysaa inaad weligaa meesha kusii noolaan doonto. Kadib wiilkii wuxuu ku yidhi ninba waxa u wanaagsan wuxuu xiisaynayo, aniga meeshan ayaan xiiseeyaa, meeshan ayaana rajaynayaa inta noloshayda ka dhiman inaan ku noolaan doono. Gabadhii waxay ku tidhi oo haddii aad meeshan kusii noolaato marka dambe waad ku gaboobi, xayawaankuna way ku cuni doonaan. Wuxuu ugu jawaabay taasi waa run, laakiin aniga waxaan ka doorbiday nolosha dhanba inaan keentan iyo duurka iskaga noolaado, oo aan doonayo inaan xayawaanka iyo waxaan la qabsaday weligiiba la joogo. Kadib gabadhi waxay ku tidhi aniga ma iga saari kartaa keenta oo dadkii ma ii geyn kartaa. Wiilku wuxuu ku yidhi nasiib xumo waan ku geyn lahaa, laakiin dhibaatada jirta baa waxay tahay aniga ma garanayo keenta meesha looga baxo, waayo waa keyn aad u weyn, meeshanina ma aha meel sida aad moodaysid looga dhammaanayo. Wiilkii iyo gabadhi waa israaceen mar kale, waxayna tageen duurkii iyagoo si fiican u wada sheekaysanaya. Wiilkii wuxuu ku yidhi gabadha magacaa, waxay ku tidhi magacaygan waxaa la yidhaahdaa Marwa. Kadib wiilkii waxa uu si fiican u waraystay gabadhii bilow ilaa iyo dhammaad nolosheedii, si fiican baanu u bartay. Sidoo kale gabadhii waa ay waraysatay, si fiican ayayna isku barteen, waxayna noqdeen dad danta iyo duruuftu ay ku midaysay keynta. Kadib iyaga oo ku nool noloshaasi keynta ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa ka hor yimiday bahal aad u weyn kaasoo ahaa libaax. Wiilkii wuxuu ku yidhi gabadhii libaaxani wuxuu doonayaa inuu ina cuno, keyntana waa uu ku nool yahay, sidaa darteed ma haysano hub ay iskaga celino, adiga carar anna waan hor taagnaanayaa, kadib waxaad fuushay geedka iga dambeeya oo xagga sare uga bax, aniga ayaa ka soo carari doonaya. Kadib gabadhi waxay ku tidhi haddaan cararo muna ku cunaynin. Kadib wuxuu ku yidhi ima cunaaye horta adiga carar. Kadib gabadhi way oraday, waxayna fuushay geedkii. Wiilkii si fiican ayuu u yaqaanay duurka. Kadib libaaxii wuxuu sameeyey wuu ka cararay, markuu ka cararay geed ayuu ka daba maray, kadib markuu ka soo daba cararay geedkii ayuu dhinaca kale isaga ka soo fuulay. Kadib libaaxii wuxuu xoogaa hoos joogo, markii dambe waa iskaga tegay, iyagana way ka soo daadegeen, waxayna tegeen buuladoodii yarad ee keynta uga samaysnayd. Kadib gabadhi waxay ku tidhi dhibtan ayaad la nooshahay oo libaaxan ayaa ku dhibaateeyey, miyaad iskaga tagtid oo aad magaaladii qabatid. Kadib wuxuu ku yidhi libaaxa saa loola noolaado waan bartay, waanan aqaanaa, wax dhibaato aana iguma hayo. Kadib gabadhii waxay ku tidhi noloshani way adag tahay, wayna qurxoon tahay, laakiin dhibteeda ayaa badan. Haa dabcan buu ku yidhi waa run, laakiin haddaad la qabsato waad ku noolaan karaysaa.